waxaan u gudbayaa dardaaran yar oo ku saabsan masaa'il dhowr ah oo rabo inaan idin xusuusiyo insha allahu tacaala. marka koobaad waxaan leenahay diinta islaamka laba maqsuud bay ku dul wareegtaa iyo hal wasiilo oo halweynaadka xubno waaweyn baan idin sheegaya wixii aan la wada gaari karin wax ka sheegaysa lagama taga dhammaantii. marka diinka islaamku ka fahan ahaan laba asal laba maqsuud iyo hal wasiilo ku taagan yahay. laba maqsuud iyo hal wasiilo. maqsuudka koobaad waa ilaahay keliga in la caabudo waxdahu laa shariika lah. ambiyo dhan baan loo soo diray rusul oo dhanba ilaahay keliga in la caabudo oon loo shariigin oo maqsuudka koobaad. ka labaadna waa ilaahay waa in lagu caabudo wuxuu asagu jideeyey uu amray oo uu jecel yahay. ilaahay wuxuu amray ee uu jideeyey ee uu jecel yahay waa in lagu caabudo. asalka maqsuudka koobaad waxaad kaga badbaaday shirki iyo kufri baad kaga badbaadi. asalka labaadna waxaad kaga badbaadi bidco. ninka mubtadica ilaahay buu caabudaa laakiin wuxuu ku caabudaa ariiqo iyo wasiilo ilahay raalli uusan ka ahayn wuxuusan rabbi jidaynin buu ku caabudaya. cibaadatullahi waxdahu laa shariika lah waa maqsuudka awalka ee diinkan loo keenay loona jidayo ummadana in la fahansiiyo loogu talagalay. ka labaadna ilahay in lagu caabudo wuxuu asagu jideeyey ee uu amray ee uu jecel yahay. didkoodana waxaan sheegnay waa ashirku walbidacu. mushrigu ilaahay uunkiisu isku laraa iskuna qasaa. mubtadicuna allu ugu dhowaadaa ariiqo uusan rabbi raalli ka ahayn. wasiilada soo ma aha labada asal u adeegaysa waa maa axalahu allahu min aayibaat. ruuxii ilaahay caabudi lahaa ariiqada saxanna ku caabudi lahaa wuxuu calfadu u baahan yahay quud iyo qaaran buu u baahan yahay jidiin buu u baahan yahay. ilaahay wixii dayibaadkee wanaagsan inoo baneeyey waa wasiila u adeegaysa labada asal ee horeen soo sheegnay. saa darteed xadiidkii qudsiga ay fi saxiixad garanaysaan baa saddexda masaleba tilmaamay. inii khalaqtu cibaadii xunafaa waa tii koobaad. inii khalaqtu cibaadii xunafaa ay muslimiin muwaxidiin addoommahayga iyagoo muslimiina oo muwaxidiina oo shirki berikaan abuuray fajtaalathum shayaaiin shayaadiintii baa ku qaaday raafka ku qaaday oo gulufka ku qaaday waxaramad calayhim maa axlaltu lahum waa wasiiladii. waxaramad calayhim maa axlaltu lahum waa wasiiladii. fajtaalathum shayaaiinna waa maxay? waa bidcadii waxay ku mashquulisay howlo kale. ta horena shirki baa lagugu sheegay calaa qisarihi. alfaada xadiidka say u gaaban tahay iyo macnaha ku jira waxaad fahmi karto ma aha haddaan rabbi subxana wa tacala iskugu furin. aad waxaa u sharxay qadiyadda ayada a'imat lislaamka ibn lqayim kutubtiisa ka fiiriye. idan waxa weye addoommaha laga rabaa ilahay keliga inay caabudaan. ilaahay keliga inay caabudaan kuna caabudaan ariiqada asagu uu jideeye sunnada ahayd una kaalmaystan cibaadadiisa wixii rabbi baneeyey ee ayibaadka waa intaa khulaasadu. saa darteed qur-aanka waxaad ku aragtay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. alisticaana walcibaada. isticaana laba faraq bay yeelataa. ilaahay ood kaalmaysado u cararto oo towxiid rububiya ah iyo isticaana bima axalahu allahu oo wixii ayibaadka ah. labadaa faraq bay noqotaa. qodobka labaad ii raaca waxa inaan baraarujiyo muslimiintu waxay ku badbaadaan itibaacu rasuulillaah. haddii saddexdaa labada asal aan isla fahanay iyo wasiiladii rabbi subxaana wa tacaala uu jideeyey xalaasheeda aan qaadashadeeda in lagu badbaada aynu tilmaanay waxay ahlulqibla oo dhan ba isku waafaqsan yihiin. kooda muctasiliga jahmiga khaarijiga xataa ummadda takfiirinaya kulligood waxay isku raaceen muslim wuxuu ku badbaadaa adduunkana uu ku baraara aakharana balaaya kaga badbaadaya naar in wadadii nabi maxamed uu raaco oo uu laazimo ariiqadii rasuulka min hayri tasarufin biziyaadatin fiiha walaa nuqsaan. wadadii iyo tubti nabiga in la raaco ayadoon waxba lagu darin waxaan laga goynin ayaa lagu badbaadaya. maxaa yeelay in wax lagu daro oo ariiqadii nabiga iyo sunnadii iyo shariicadii ariiqadii wax ku darto macnaheedu waxaa weeye kitaabka rabbigay iyo sunnada nabi maxamed ma dhammaystiro oo waxay ka tageen waddo alle loogu dhowaado oo waa naaqis. macnahaasaa ka dhalanaya. laasimka aad iyo aad ku dhib badan baa ka dhalanaya. haddii shareecadii iyo sunnadii aad wax ka goysana waxaa ka laasimaya waxaan loo baahnayn bay alle iyo rasuulka la yimaadeen oo shareecadan waxay rabtaa in kurtumaha laga jaro laamaha laga guro ul fiican laga soo reebo oo filgimada meesha laga saaro.
وخطر كلي مركا نقصان زيادة واد اسك إلالين صادرت واد بدباي صادرت لك الإمام مالك أبو عبد الله وعيدي من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة نينكي بدعة لي مات أو أركيني وناكسنتهاي وحوش شيغو كوان دعود اسمه أوغي نبي محمد خاين بوها فرينتي دنبالك ربيين موسى قدنين بو قرنها يا أبو لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا هذا مالك وتقرنيسة وحاي رعضوا صدحات هذا طلبة العلم التيني هذا المسلمين تيني هذا عامة تيني هذا علماء تيني إلهي سبحانه وتعالى إن لسبهم به وأسقى العسكدو أو لسديبو أو باهر رب الله موجيو ومن الدين حوقينا iyo xeeladiina iyo caqligiina iyo dafdaftiina badan yay saydin dagin ilaahay faham weydiista tawfiiq weydiista inuu dahaniyo weydiista في المسائل العظام والصغار وانا soo maray hadalka Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayh oo oran jiray ninku waxa laga yaabaa inuu noqdo qofku nin aad u caqli badan oo waliba fiiro dheer oo aragti dheer oo indheer garad ah xaqana uu ka ilduufo شيء آدي آدو عد حيث توفيق يهانون كيدا الله إسكاله وحالقا يابا قفكو إنو يهاي دبين لقا رونا أنا مسكح بضنين في رد ديرين هوسكسي وحكا فوق بان أركي كرين حقا إلهي وكو هانونيو شيء قدتكو أي قران وايه وحو مركي وحو الله بحيو وايه إلهي هلا بوريو ربنا هلا اسكحرو قوب كلا إيرع وحاوي حقائق دا شرعي أما علمي لما قران وايا أتكان أيضو أدقتهاي أما لبرسانا اللي برسانتهاي انت بدن إن أيضو آدي أدو اللي برسانتهاي أما وقرصونتهاي أما فهم كيدو أدقيها اللي ما قران وايا غالبا وحلو قران وايا عدم الاهتمام بالتعرف على الإنصاف إن دذال بكم بحنيسد وقت بالسين ميسد إن المسألة باردو وقت كو بحسو ضبقشو بقول كتاب كو أخريدو شيخ الإسلام ابن تيمية هل مسؤول لو ودي وحوري بقول يتضباطا كتاب بان مراجعية مثلا أيضا بقول يتضباطا كتاب يسلف قرين مثلا كلو كهالله عيو تضباطا تفسير ويسلف قرين بان كم مراجعية أيضا تفسير كذا ما هذا إنه تضباطا تفسير يسلف قرين وعمان كاين هذا أفر بان كاين أماني كي ابن منذر وهناق هافأة يكي ابن جرير الطبري لما يستران ابن أبي حاتم أصنع هافي معاك الوايسار ابن كثير وبعرض يزيك هذه ابن تيمية كان لنا تضباطا تفسير السلف القرآن ما كان مراجعيه يقول إذن قد يض إن هذا وقت وكب حنين قرافي بأمال العكاه الله مسألة عوائد مسألة أصولية كاه الله حول مسألة وحان مراجعيه مركان إشكال كذا بحون هاي سديتا كتاب أصول فقه بان كلمة كفير يقول مركز سنكوي وحكاه الله كتاب هبل بان ما كتب بكاه يقول سديتا كتاب وصول فقه ومخطوطه وفرقوره كل هذا اللي نضرب عليه سوي فهي هذا وحبا كثير لا دي عنده قدر عندنا ينقروح ديس اذا سبب كحقائق العلم لو قران واي غالبا وحاوي ان هذا طناينين ان عدم المبالاه عدم الاهتمام وقتكم ما هي سبب ان ميلها شاكيسود ميلها شعب دود كفتنتود اورودود يا تكربته ان الوقت كبخيسو او ديد كترتو oo fartan muudiso indhaha isdabar ilaahina barido ma barabtid صادرت علم فني وأدق فني أدق متجره أذان هي أذان ديار وأهين صادرت إلهي سبحانه وتعالى حق وحق أصيبي في زمن الفترة جماعات حلي عن رسول شرين والنبي محمد سود دوين أما سود دوين أن صادرين وحق نادر هاي وإن لها لا أي فكتهاي با إلهي وحوا فتشي حقي جماعات طوائف كسلمان الفارسي وزيد بن عمرو نفيل العدوي محكو هلال باريتانيا بحثي زيد انتو دول مري idinku akhriya taariikhdiisa intuu xaq raadiyay سلمان الفارسي محو soo maray dhibku soo maray wax soo maray ma jiro kan ka wareeg soco boob ha ku dhiibo baadir ha ku dhiibo ha lagu adoonsado biyo dhaame beeraha falsiya dabeeri bogaha laga garaaco si uu waday wuxuu la kulmay نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذن حلقة أي زيد بن عمرو نفيل يا سلمان الفارسي حق باع سنيين
ay baadi gooban ay raadinayeen waqtina bixinayeen dhibaan bini aadan marna ay marayeen xaqu muxuu ahaa in la aleelo aad iyo aad bay u adkay una fogayd laakiin ihtimaamkii badnaa iyo allabariga waxay ku heleen waxaan khayrkood helin waa zaman alfatra zaman nubuwa oo nabi maxamed taagan yahay oo dacwadii bilaabatay oo diinkii nuurkii saa u ifahayo yay jamaacada xaqii ka indhabeeleen adkiyaa u naas ah limaama licadam alihtimaami wa cadam aliltijaa ila allah masalada inaadan danaynin waqtina ku bixinin alladan aana baryin baa sabab u ahaa awal kufaaru quraysh xagee ka baxeen zaman nubuway gaaloobeen meesha zaman alfatra ay islaameen dawaa'if min annaas faariquna waa maxay waa dadaalka dheeraadka iyo dacwada rabbiga aad tuugaysa wey qadiyada marka yaan lagu khaldamin waxaan kaloo ku darayaa ruuxa muslimka waxaa wanaagsan inuu ikhlaaska iyo daacadnimada naftada inaad daaco noqotaada rabaa ikhlaasku wuxuu ka bilowdaa daacadnimadu iyo ammaanadu naftada laga bilaabaa naftada ceebaheeda waad og tahay meeshay ka liidataad og tahay naqsigeedaad og tahay ruux bini aad si kastoo lagu ammaano ama lagu boonboonayo wax adiga iska kaa og ma jiro adigu naftada ha khaa'imine naftada xumaanteeda wax ka qabo ilaahay ka cabso boonboonintani ammaanta iyo xoogow digdigtaasna aysan ku tagin ikhlaas baa laga rabaa shay kasta aad daacad u noqoto ikhlaaska koobaadna ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkaada aad u saafi garayso naftadood ka qabato alle subxaanahu wa tacaala oo si wanaagsan aad ugu xidho xaqaa'iqda diinadooda fahanto insaaf iyo garsoor iyo cadaalad dadka iskhilaafsane masaa'ilka isku haya kanaa ree hebel ee kanaa kuxi kanaad saaxiib adoon eegin xaqa u insaaf xaqa daacad u noqo asaga ammaanada sii asagaa muhiima taqdiisu alxaqi laa taqdiisu alashkhaasi wadaat shayga mudan in la xurmeeyo la qadariyo waa mabdaa fikradda aragtida diineed shayga saxan adoon eegaynin dadka isku haya maxay kala yihiin yaa ku xiga waxaa kaloo muhiima halkan marka la marayo in aad ku baraarugtaan khilaafiyaadka ahlu qiblaha u dhexeeya masaa'ilka khilaafka dhow u dhexeeyaan ka hadlaynaa qaacido qur-aanku tilmaamay baa jira oo muhiim jiddan meelo badan qur-aanku ku tilmaamay dadka ishaya ee masaa'ilka diineed isku haya ahlu qiblaha ay khilaafkooda isku dhow yahay ana kama hadlaya balaayada kale had iyo goor waxaad fiirisaa labadan aragti midda haddaad qaadato gaalnimo lagu laasimin iyo midda haddaad qaadato wax gaalnimo ka sokeeya lagu laasiminayo markaad saa isku barbar dhigto adoon aqoon badan baa lahayn baxdi badan ba aan samaynin waxaad doorataa midda kaa fogeynaysa gaalnimada la sheegay gaalnimada la sheegay ee cadaabka ukhrawi iskale adduunkana madaxa lagu qaadayo midda keenaysa ka fogow oo u carartaa xanaanayka bacdu shari ahwanu min bacdi weeye halkaa iska aad intaadan baxdi kaleba gaadhin qur-aankaa tilmaamay wuxuu yidhi wamaada calayhim low aamanuu maxaa yeelay islaamka nabigu la yimid hadday qaataan oo sidaa uu nabigu sheegay ay tahayna jannay ku galahayaan hadday noqon weysana wax ka soo gaadhay ma jiro ayagaa qababa marka waxaa laga yidhi muxuu islaam horta idin yeelayaa war hadduu sax yahayna jannaad ku dhuflaynaysaan haddaad qaadataan haddaad diiddaanna naar baa idin quwaaxi diiddada marka maxaad ka faa'idaysaan diiddada falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum walow aamana ahlu lkitaabi lakaana khayran lahum wamaada calayhim low aamanuu ahlucilmiga qaacida laftigeeda isticmaalaan aan ku fiirino meelo badan masaa'il badan baa lagey waxay geliyaan jaxdu rab ilaahay in la ogolaado oon la dafirin iyo in la diido kee khatarsan ninka hadda mulxidka ah ee ilaahay diidan adduunka maanta jooga dadka ilaahay rumaysan naar baad gelaysaa ma laha u fiirsada dadka maanta ilaahay aaminsan waad khaldantihin bu iska leeyahay waad wareersantihin waad khaldantihin anaa idinka saxan war ka waso inaan khaldannahay oo ilaahay aaminsannahay oon rabbi rumaysannahay maxaana soo gaadhi fikrad baad qabtaa haddaad dhimataan waxba idi gaadhi maayo janno iyo naar midna ma gelaysaan
wax dhiba ma jiro soo maha adugu waxaan aaminsannahe inay naaru ku quwaaxi labadaa aragti caqliyan teeroon intaan kitaab iyo sunno iyo axaadiis la gaadhin labadaa aragti tee in la qaato caqligu keenaya midda naarkaa badbaadinaysa wamaada calayhim low aamanuu nebi maxamed in la rumeeyo iyo in la diido caqliyan keeroon in la rumeeyo maxay ninkii diiday waxaan leenahay naar buu gelayaa cadaab baa kuu diyaara naar baa ku quwaaxaysa waa ninkii diiday laakiin ninkuu rumeeyey naar buu gelayaa ma laha kuwa diidan waxay leeyihiin fikrad khaldan buu iska dhaadhiciyey wuu ku daalaya wuu ku rafaaday war rafarafaad ii kaadiyo naar waan ka badbaadi soo maaha naar geli maysid ciisaan rumaysna oo muusaan rumaysnahay maxamedna waan ku darsay waxba kuma soo gaadhin beenaalo unbaad rumaysay waxaad ka faa'iida ma jiro taagan yahay laakiin anigu waxaan ku leeyahay beeninta aad beeniso waxaad ku gelaysaa naaraadan ka baxaynin labada ayaa rood caqliyan intaan la gaadhin xujo sharciya iyo caqliya wamaada calayhim low aamanuu wey nafs halkaa mari u soo imow mas'aladii laysku hayay ahlu quluub maanta ka dagaalamaya xataa wahabadu isku hayeen saliba isku haysay jaahil mushriga oo mutaawila ninka islaam u xukum waxaan leenahay annagu mushrigii jaahilkana waa kaafir ninkii dha waa muslim koofid ku cimiyaasna waa kaafir labaduba khaalidiina fiiha wey saasaan taaganahay kuwa naga soo horjeeda maxay leeyihiin mushrigaas inaad takfiirisaan mutaawilkii jaahilka waad ku khaldantihiin kii takfiirin waaya inaad sii takfiirisaan waad ku khaldantihiin laakiin naar baad gulaysan ma laha ma dhihi karaan carha la soo helo waxay u arkaan masale nadariyo fiqiyo khilaafiyo isku hayno oo ra'yi sawa yaxtamilu alkhata ra'yu khayri khata yaxtamilu sawaab annagu waxaan leenahay inaad annagana soo raacdaan waa min baabi wamaada calayhim low aamanuu hatii laga tago xujajkii iyo qadciyaadkii iyo ijmaacaadkii laga tago war annagu waxaan taaganaha masaladu ninkii saas sameeyeyna waa gaal kii koofiyad islaam ku camiya isagoo xaaladiisana waa gaal labaad labaduba ahlu naar wey fircoon bay ku baabiyiin naar bayna ku waarahayaan khilaafkan marka u dhexeeya ahlu qiblaha muntasibiinta noocaasa waxaa lagaa rabaa intaad sidaa u fiiriso inaad u ciilato intaan meel kale la gaadhinba midka naar kaa badbaadinaya kuwaarideed iyo cadaab daa'ima kaa badbaadinaya waa qaacida muhiim jiddan oo inaad ku baraarugtaan ay muhiim idiin tahay qodobka ii raaca waxaa weeye yaan lagu khaldamin laa tankhadic bilalqaab waltanfiira waltashnica fi lmaqaalaat nin walba wuxuu isku dayayaa axadka ka soo horjeeda aragtidiisa iyo fikradiisa inuu cambaareeyo dhaleeceeyo balaayo ku sheego si looga fiigo had iyo koor marka xumbada koor lama eegee miiddaa la qooransadaa nuxurkaa la fiiriyaa dadka banidiisa lama eego buuq iyo bumbuuninta wax laguma qiimeeyo hoos baa loo dagaa dhaqan bayna u lahayeen dadka bini aadamku had iyo goor wax iyagu ay rabaanna inay malab kaaga dhigaan waxay diidan yihiinna ay saxari iyo xar kaaga dhigaan saa darteed ibnu qayim wa ahlu kulli nixilatin wa maqaalatin yaksuuna nixilatan wa maqaalatum axsana maa yaqdiruuna calayhi min alalfaad nin walba aragtidiisa wuxuu cidhaayaa marada ugu quruxsan iyo magaca ugu wanaagsan buu u bixinaya wa maqaalata mukhaalifiihim aqbaxa maa yaqdiruuna calayhi min alalfaad ninka ka soo horjeeda aragtidiisana waxay ka dhigahayaan una xidhayaan dharka ugu foolxun magaca ugu liita muuqaalka ugu foolxun bay ka bixinayaan waman razaqahu allahu basiiratan fahuwa yakshifu biha xaqiiqata maa taxta tilka alalfaad min alxaqi waalbaatili walaa yaktaru bilafd ninka laakiin ilaahay faham siiyo aragti siiyo waari waxaa kuma mashquulahayo wuxuu fiirinayaa macnuhu eegaya xaqiiqdu qooransanaya wuxuu yidhi seen marka ku garan karaa faidaa aradta seen ku kala garan karaa marka buunbuuninta iyo kaartada laygu waday iyo xaqiiqada seen ku kala fahmaya faidaa aradta aliطilaaca calaa kunhi lmacnaa hal huwa xaqun aw baatilun fajaridhu min libaasi alcibaara macnahan iyo shayga inuu xaq yahay ama baatil yahay marabta in kale ogtahaa lafdiga xagga iska dhig
hebel waa khaariji waa takfiiri waa argixiso waa burladuul waa usuuli mutatarif waa nabadiid waxaa xagga iska dhig waxaad tiradaa war muxuu aaminsan yahay maxay tahay weedho saas weeye waxaan dhan iska daa waagi hore wuxuu ahaa mooryaan aabbihiina wuxuu ahaan jiray tuug ayaydii meclaa laga soo qaaday asagoo waa dhoweyd ayuu diinta soo galay waxaasoo xagga iska gee maxaad tidahdaa war ninku muxuu leeyahay weedhiisa ii dhiiba macnaha nuxurka madhabkiisa ii dhiiba oo sidiisa waxaasoo iska daaya kurtumaha xagga geeyo miidda halka soo dhiga fajaridhu min libaasi alcibaara wajarid qalbaka min annufrati waalmayl aduguna didmada ninkan aad ka disanta xagga iska dhig xayaashada aad hebel u xayaynaysa xagga iska gee adoo macallin miyaad sheekh hebel la murmi kartaa bay ku leeyihiin shalay baa wada haydi qolyo daarood waagiya hawiyaha ku xumi maxay yidhahdeen maxaakimtii maxay dhaheen ma yeeli kara haddaan daarood nahay from mooriyaan to mujaahid ma yeeli karay dheheen sheekh xasan waad garanaysaa shalay baa maryaha naga furinaysa haddana maanta maxaakim islaam baa nahay yeeli maynay dheheen waxaasoo dhan looga baaro waa hawshi waa talbiis iyo tanfiir iyo tashniic shayga xaqaa baa lagugu diraya wuxuu uhi wajarid qalbaka min annufrati waalmayl almawduuciya yidhaan qolyaha hadda waxa qorqora taasoo kale weedh marka laguu sheego waxaad dhihi yaa qaba hebel tanna yaa qaba hebel iska daa sheekh hebel baa fiicane maxaa yeele weligii buu ku habsan jiray war weligii ku habsan jiray lasku hayaa war hadda baash xayashada aad ruuxan isjeclaysin iska daa kana didmada aad ka digaysa iska daa wixiisa hore ka soo tag weedh baa la isku hayay maxaa yeelay adcafu lkhalqi baa laga yaabaa inuu masale ku habsado adoo geesa waaweynna ay ku garamarto way dhici kartaa mawaahibta rabbiga ayaa bixiya ilaah baa iskale waxaan adu ma lihid wuxuu yidhi intaa kadib soo ma aha dharka horta ka qaad alfaadan foolxumada ee tan lagu foolxumeeyey ka tir tanna alfaada lagu qurxiyey ka tir aduguna qalbigaada waxaad ka tirtaa xashada ka tir faara qabiilka ka jooja qalbigaada saddex maxaa ii dhiman uma acطi nadara xaqahu si fiican masada u dhuga marka adoo halkana ka fayow wixii indhaha ku tirahayna iska qaaday indhaha maxaa ku tirahay indhaha waxaa ku tiraya marada loo xidhay ee la qurxiyey weedhi khaldamayd iyo xaqii oo waxun loo xidhay baa kaas marada meeshood ka fayd meeshanna waad saafi garays maxaa ku dhiman indhihoo wax hortaagan jiray inay shayga si fiican u fiiriyaan uma acطi nadara xaqahu naadiran bicayn اlinsaaf walaa takun miman yanduru fi maqaalati asxaabihi waman yuxsinu danah به نظرا تاما بكل قلبه ثم ينظر في مقالات خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر عفوا والملاحظة وحوري قدم حق السي باريتانك يا اجمد يا كفكرك يا دوشده مساله سي فعن uga bogo hadegdegin ha noqonin ninku eega dadka isku aragtidooda si fiican u akhriyo u faahiyo u fahmo oo u fiiriya ninka ku kacsan yahayna isha ka bootiya dulmar iska daa tasafuh وروها أودنا بستارك سبعا وآخري كما كريسد طاولوا بابا عابر فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوية والناظر بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق وقد قيل مركا أبيض بضنبو مركا يشرحي قضية مركا ومهم صدح ذات درجة لقاربة صدح ذات درجة مركا ذا الشو إلهي وكبت بعدنية مركا لو حوليه هاي in shayga xaqaa la cambaarayo oo maryo baas loo xidho oo ummadda lagu diro baatilkana la qurxiyo la nashnaasho la bakti afoofo waa ariiqatu fircoon wa kufaari quraysh wuxuu wa ashadu maa xaawala acdaau rasuuli min atanfiiri canhu suu tacbiir cama jaa bih waa qaacido muhiima nebi maxamed xaquu la yimid calayhi salaatu wasalaam shayga ugu adkaa ee ugu daraa ummadda ay kaga fiijiyeen xaqana ay ku baabiiyeen baatilna ay ugu heeliyeen kuna hor istaagan ummadda wuxuu ahaa suu tacbiir canhu in laga bixiyo sharxid iyo qeexid khaldan baa laga dhiibaya maxamed muxuu yufariqu bayna almar'i wa abiihi bayna azawjati wa zawjiha waa dumiye waa kala tuure kala xooro wey kii odayga yidhi cimraan xuseen aabiha khusaaci nabi maxamed oo awga waa kaa fiicnaa meeshuu ka fiiriye eeg ose iga fiicnaa awga cabdulmuطalib wuxuu ihi quraysh kaana yuطcimuhu اlkabida wasinaan
والصنم عفوا وحسين جري أوجا قريش دقيدة هذا كورس يا بير بك درجين جري وأنت تنحرهم نحرم أنا بتقول عيسى أيجي بدوي لي سنب وحكدر نبي محكدر جاي بحل ضد عناه وحب بدبانين أنشرين دقيدة محكدر جاي نمن قبل كل ما تي وقدرنا الشيء حقه إن لو حره مرباس لو بحيوه مقع اللي طبعا متشرو شيء حقه مرباس إن لو حره مقع بانا لو بحيوه وقدرنا متشرو اسكي إلالي وحي كله يسميه وضرب الأمثال القبيحة له تصالح خلطان بالغ بحنية وكل شيء الله وحيد كل شيء الله وكلوي إنك يجيك هذه مقالة الحازم والسمال وبطل لقوه حيو داعش لقوه كبو إيش كي خليفي وركي سير لقوه محمد مسلم كسر هذا يدوي مركه هو شهادة كإلالية وحور وهذا شأن كل مبطل وكل من يكيد الحق وأهله هذه طريقته ومسلكه وأكثر العقول كما عهدت تقبل القول بعبارة وترد بعينه بعبارة أخرى هذا ضد من لم يكفر فهو كافر نك صومالي يرفع ما لقى يابا قاعده ولا يقانا وكدب كان نقاشتان منتصبين تمسوق يا مسمايا لكن هذا تكفير العادل قرب أبودها تكفير العادل وقرب أبودي حور dadka bini'aadanka badankood aqligoodu waxaan ku aqaanaa shay inay aqbalaan marka qaab loogu dhigo asiga qudhigiisana ay diidaan marka qaabka loogu dhigo waxa qalday marka waa maxay wuxuu raacay goor cibaaraadka iyo weeraha نفس الشيء وانا ما لو يقول مثلا اديله هويدا waa dhays wad xanaaqi waa xaamilana waa iska caadi mata misama hooyada waa dhays way rimanta adil guraad burka la boodi hooyada waa xaamil ama uur bay leedahayna waxba arki maysid laakiin waa isku macno soma cibaaradan baa kala xun wadaadki muxuu yiri معها متربي ميوها مسنين قالوا هذا تقول هذا جني النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء التعبير شنذا ملب كذا مروة عاي وحدي كرتا و دوق حاركي بعده إلا الشنذا دوق ويسكو يجيمن ودوق متجي بعده حاركي مرة هذه واشين ملب كذا وأنا هالشيء يعني قابك اللي دونا حق اللي فالحمين باطل كان سيد دونا اللي حيسين وحا الله فرطي إذا عادها دونك الله سميستي واربعين الله سميستي قضبك إرع وحاو إحسان ظن بالمسلمين وشيء من الدين هالوجود هذا دتك المسلمين تا ملها لو وناجي تهمدا بينتا يحد كذبك يوركتي ما شاء الله اسكيل عليه المسلمين تا ملها وناجيه كنا دداله عربكينا برا الحفظ والسطر عربكينو دور سنادو dadku san ku xad gudbin edab yeesho bara niyada sameeya qalbi wanaagsan umada kula dhaqma illa ahadki aad ku aragtan xumaan mooyee laysa almu'min bit'ani wala bil'an wala fahish wala badi wad garanaysa salafku saddex bay ka soo reebeen dadkan malaha loo wanaajinaynin xaqana in la xanto ay banaan tahay umada inteeda kale waa in idinka badbaado حسن ظن أنكم ماموشان قلبك وناجسان أفي أدنك إلى شتان الله وقع بستان وأنك كفر يسوم موغضه أما فسق يسوم موغضه أما ظلم يسير جورك سمو سيد صاحب السلطان كوكالي الإمام الثوري حورنجري المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة مسلمين تردن وينو وناكسينهن إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان لبؤم بانو وناكسنين ونيحن أهينينا نين صاحب بدعة أما نين لا صاحبي سلطان جائر وظالم ونعم لي هوس بوداية هذا الجائر بهذا قال مريس أحد نحب الأسوي حيلي الرجل إذا كان صاحب بدعة يظهر ذلك أو معلنا بفسقه فليس له غيبة نينكو هذو بدعة موجسانية أما فسقي يسوم مجاهري هو مسطر أهين بني آدم هو خلدماي نين وحيس قرصنا ييو نين بنانك صودك تيكليين المجاهرون بالو يقانا نمنك لبريرا حمانتو لبريرا كوا أيغا حتى إلا حنطور حن معها فليست لهم غيبة
isxaaq ibn rawi wuxuu laysat lahum xurma waxaa la weydiiyey ahlu bidca ma la xaman karaa markaasuu laysat lahum xurma mala maxaa yeele markay iyagu xurma iska qaadeen oo sunnadii garab mareen oo ilaahay ku gacan saydheen bay sharaftooda dumiyeen cabdiraxmaan ibn adiina wuxuu odhan jiray isagoo ama udayna waxaan ka soo gaadhay culummada yadii iyagoo yidhaahda alaaatun laa xurmata lahum walaa kiiba saddex xurmo ma laha xanna ma laho xantoodu dembi ma aha hee alwaali الظaalim الjaa'ir madaxweyne iyo gobernatore iyo amiir ظaalim oo jaa'ir ah midka labaad wاlfaasiqu اlmuclinu bifisqihi iyo nin fisqigiisi banaanka dhigtoo la bereeraya sida qolyaha fanaaniintoo kale kuwa khamrada caba kuwa ribada kuwa cawradooda qaawiye heesa ama buranbura ama niikiya baktigaas wa saaxib اlbidca saddexdaa وطريقة السلف الوالي الظالم الجائر كو حوار كداد حسن قرقر تكاش وني لا كعب صح حمني هذا عام سو كيني ميسا فرماجة تعليقين او الموالنت ودادو افك هذا اذا بوي سو كيني ميسا سلف كل سنه يقول لي ونمن قال لي ما انكو هيسنو يا waxaa leedihiin wadaadu waa xamanni hawshaasi aad iskaga ilaaliya نقول بدن وسلف كوسابسن قضيه سيلي انت سان كغا سو غابسناي المهم احسان الظن بالمسلمين iyo lagu daa carabko la ilaaliyo la dhowro waa as diineeda lagu dadaalo is ilaaliya dadka laga soo reebayna dambi ay galeen awgi baa looga soo reebay waxaad kaloo iska jirtaan xasadkii xiqdiga fil muslimiin umuman xasadku wad ogtiin xasanaadku dumiya waa cudur dhib badan waa haddaam waxa ma taro umada anoo ku tari maayo waana aafo ذنوب معاصيده عفوا حسنات كاد عنا بابئني حسد كمركا يحقدك في المسلم عمر اسك الاليه وفي بينكم وكسي دريا حرط يا طلبه يا علماء او درن اسك الاليه بل وداده يو حرتو يا معلمينتو يا ardadu waa dadka ugu xasad ban adduunka marka cudurka inuu kugu jiro ku hayo aad isu tayo isfiiri iska warqab سفيان الثوري wuxuu oran jiray aniga nafsaydii dhiigayga culumaan oga cabsan buur caamada iyo bulshada iyo xataa nimanka boqorada waxba yeeli maayaan waxa idili doona waa wadaad buu oran jiray ma akhafu ala diini illa alqurra wal fuqaha diintayda waxa khatarta ku ah waa culumo iyo quraanka yaqaan ma ana qultuhu qala ibrahim an-nakhai anu ma dhihin buu taabiciga sheekha noo ahaa baa yidhi oo ahaa ibrahim an-nakhai marka wuxuu yiri ma akhafu ala dami ila alfuqaha wal qurra dhiigayga waxaan oga cabsanaya ogama cabsi ciidan ka ahayn culumada iyo kuwa quraanka yaqaan Soomaali way yaqaan waxay dheen qiilo ku banaysa iyo qulucu ku ritaba asaga iskale islaam baa hayn ari baa ka fakadaan leey markaas ilaahu arigayga xira islaan gee oo xira wadaad hayga geynin buu ari baa ka fakada way raas ku soo bixi wad gabalka baa dhacay waxay tiri ilaahu arigayga u bixi xira islaameed laakiin wadaad xiradii allah caawa ku dheelmin bayt maxaa jira leeyri qiilo ku banaysto iyo qulucu ku riti hilibkii oo ku gurta asaga leeydi wadaad waan baafiyo waaba la waayo daana iska laba kule عرفها كيجي بان مود متأول waa macduur midi dheer uu wataaba tiro qiilkan uu la socda xarshimo ku gurtana way helaya mar labaad wuxuu leeyahay akhwafu ma akhafu ala nafsi wa ahdar ala dam alfuqaha wal qurra min ashabi buri ragaan isku fiqiga isku aragtay reekoofu iyo ree iraq baan dhiigayga oga baqay diintayda وذلك أني وجدتهم أشد هذا العالم عفوا هذا العالم كله تحاسدا وتدابرا وتلاعبا وتباكيا بعضهم على بعض علماء يودادي فضحان أركي مكان دون كفيري نمانك أوغو حسد بدن أوغو ظلم بدن أوغو حقد بدن اسكون نعب ويبور آخر أيها يدلو دونور مالك بن دينار رحمه الله تعالى وحورن جري انا اجيز او يجيز واحد هذا بشهاده القراء في كل شيء علماء وحوري مخاطبه وان قبان markay qadaha iyo maxkamada la joogo illa shahada ba'dhum ala ba'd laakiin iyagu isku marhaati kacaan ma qabanayo
فإني وجدتهم أشد تحاسدا من التيوس حرودادا وحان اوغادا nimanka ugu xasad badan orgida ayaa ka xasad badan buu orgi waxa arkay buu riba xasaan bay nafta ka goynayaan maanta bay laaqirayaan iyagoo boqol isu dabamar mid gees kaliyo waxa ay soo galin ma jiro xeeray maxawsha maxana wadan leeyahay xasadka iyo xaqdiga iska daaya ummadana ka daaya idinkuna iska daaya ninkii war uu ka soo gaaro ama wax lagaaga sheego waa la lahayaa dhihina waa walaalka inta uu tagto warayso adigu hubso dhaxdiina waxaan ku ogahay niman sidaan oo kala ah aan waxba hubsanaynin cudurkii wadaadoon baa haya daliideedba qolyo suudaan iga soo wacay baa jira qolyo muqdisho ku dagaalamaya jiro isayo masaajid salaadii kala goostay asalkiisu waxa iska yahay wax u dhaxeeya xasad iyo hubsina la'aan waxba la hubsan maayo in hebel kaarka aad ka gubto aduguna aad soo baxdo wax moodaysa maan loo hadda gaaris aan tagay hawlan la yaabaa la ii sheegay waxba si dhaxgeli maayo niman anagu aqaan oo quraanka si fiican u yaqaan wala mujawwid ah oo muqri ah ya meel masjid la imaam ka noqo wadaad kale oo qaraabo noo asan hawsha ku fiican ayaan weydiyo ka warnay ninka meesha loo dhiibay wuxuu yiri masaajidku aad buu fiican yahay waa quruxsan yahay laakiin cudur wuxuu qabaa niman quraanka aqoonin baa loo dhiibay xilooyin badan oo masaajidku uu leeyahay jamaacadu ay leedahay intuu ka soo ilduufay oo uu qariyo oo san arag wuxuu arkahaya wadaadka kaliya uu arkahaya xagee ka timid bini aadamku intuu isku meherada way isnacab yihiin Soomaalina way taqaanaa waxay dawarsato xagee ku cilowdaa dariiqa dadka macallimiinta iskugu nacab waxa kale iskugu nacab dukaanleyda waratada kuwan fundiyaasha ee biraha gargaraca inta ummadda isku meherad iyo isku shaqaab aad bay isu nacabiyeen waxaa la doonayaa marka calaaqadaada iyo xiriirka bulshada aad la leedahay ku xakamayso diinta oo alla ka cabsato oodan aaminin ruux baa calafkaada qaadan ama irsaaqadaada qaadan ama quudkaada iyo qarankaada qaadanay waxaan ilaahay baa gacanta ku haya qanaaca laga rabaa marka wadaado maadaama ay yihiin isku xirfad aad bay isu nacabiyiin aad bay isu xasdaan hawshoodu way dhib badan tahay ilaa man raxima rabbuhu حورج اسماء الثوري لا تجوز شهادة عالم على عالم للبغي والمنافسة شيخ مخاتيجي مثل الله قوان مايو هو البان ويديو شابر ساسو كيري للبغي والمنافسة ومن طريق المحاسدة وورك ثوري ويقانا فقه الأموي وحالوج إذا مركن قرائن كله يأدي لك لأن لوها ينوح وداتك الشيغي بمجرد هبل بهبل وحكا الشيغي قيمين قرائن كله يأدي لك لهذي ما شتماته أما حك لا أضوها يسوى جوني لكن حسد بدن ترتم بدن حرق إسكي استاجد كبا إسكي جوين فرب بدن أيات جرا أصل لوام محي وإيمان حميو الله كعب سياران إيه حرفضي ومال اسكن مال كالنقطة عبد الله بن حورنج لا تجوز شهادة القارئ على القارئ يعني العلماء بالي أيها القرآن اللي يورنج واجه لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغيا قضية داير على وحاوي يقدم بيسا إن كقبح هي كلمة إسكا إلالية مسألة عن كسوها الله حرتين هوشن خصيصة طلبة العلم يقول حرن دليل دبدبا ينتهر فردبا وحن صوم مرة علماء مجتهدين المسلمين إن لو قال يسين كرين في المسائل الاجتهادية سيدوك في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف لبضع حبوا إنك صوم مرة مسائل كاجتهادية مركا أراكتدين أنه كوكلا دوان تهي قطعيات إجماعيات كما هالله بلشدة أنك عنو سهينو أما ودادها الغشة أما عامها النقطي قواطع كتاب الله بانكو هايسنا قواطع السنة بانكو هايسنا إجماعات هذه الأمة بانكو هايسنا مسائل ضروريات أن تدخل هاينا ما وحنكو هاينو خلافيات اجتهادكم هاي النمية حيرت الدحدة دي واحد كورك إذا حبط لس ميسا وكبصة ليسا مسائل اجتهاديات وخلافيات أضوء سؤال ورقة أنا سوى ورقة تكفير إني قاعدة لقيا مركة قارو إني قاعدة آدس كجا إلالي قضية ضوا خطر حول أبو عبد الله المازري مركو مسألة كهلا مسألة لمدة والقطع في موضع التزويج غلط وجهالة والقطع في موضع التجويز غلط وجهالة
inaad masalada goyso ood bir ku goyso waa sida aad tidhaahdo ayadoo meesha ixtimaal culus ka furan yahay waa gaf iyo aqoon darro diineed wadaadihii sharxaya muslim oo dhan baa hadalkiisa soo qaatay الوزير وحوري فمن زيادة في الدين دين توحلو كردي وحاكمذا أن يرفع المظنون في العقليات أو الشرعيات إلى مرتبة المعلوم وهذا حرام بالإجماع دين توحلو كردي وحاكمذا شيء ظني أم اجتهادي أم خلافي أو صائغة إن قيسو درجدي الضروريات والقطعيات آت قيسو وأنا حرام من دا إذا رفع قاسي يكر دلعسين تاسي بالإجماع وإنما يختلف الناس في الاجتهاديات عفوا في التفطن لأسبابه وحلوك للتقابل الكلية فهم كلا فهم الشيء كان مظنون با مسوا قطعي يلوك تقابل لكن أين الزيادات أي باطل طاي حرامنا بالإجماع محان أوقد دقيقة رأي هذا رأي خلافون اجتهاد وحلو قال يسيو ذات كان لقد له لقوا لقوا بنيستو أما لقوا حد ومن مذهب الخوارج خوارج مذهب كذا وحد كنت قانا كلية تكفيره بالذنوب والمعاصي بعد السلف وحي قليين رأي اجتهادي أنا وحكو قال لفتكسوا معي ومن مذهب الخوارج والعزارقة الإمام ميمون مهران التابعي يا أردقي جعفر المرقان باوحوجيري خوارج من القدة بتوكن كراه جعفر المرقان بدا خوارج من القدة بتوكن إمام كون غام بنانطاه مقاسو ها إنك لا تصلي له أسأقول أمتك نيسد بول إنما تصلي لله وقد كنا نصلي خلف الحجاج وهو حروري أزرقي حول أنه وطن تابعين يتبعوا التابعين الكبار وحن قد بتكون جري حجاج ابن يوسف الثقفي المبير وحونا هابلو حروري أزرقي ولا أزرقي منك أخرين بهاي حول جعفر برقان الشيخ بن فيري إنام فيري مكو أركي يحوري معاد إليه بنطة فنظرت إليه فقال أتدري ما الحروري الأزرقي هذا يجيب المئة تقانور تخارج نيك الليلة أما حروري الأزرقي متقانا هو الذي إذا خالفت رأيه سماك كافرا واستحل دمك وكان الحجاج كذلك يقول مرة حرورها أزرقها وأنك ما كان رأيك خلافت ما الدين بالخلافت رأي أسوق وأركي قيمين وأسوق مثلا صاري أن دليل علوص لاهين وقطعي أيو يحكو أدار خلافت حولي كافر باطل دي قدروا بنا السنة حجاجنا سيدا سوها ورنتي حجاج هدو كله البابك كبح واسكوك هاي كينا مساعد كاس بلال أمي هدا اسكوك هاي كينا وذا البابك دم كبحه وثوركت حقو كوستوي كدلي قال باطل كله هم حاجرة الباب كان كبح ما نقول ما حد كبح والأمير وهذا سويني داير اسكوكو ما أما بلال وجدده ما هاي هدان وريكتي إيو هدان توبيو يمحاو دحية رأيي مربط خلافته لي قدوا بنايا خذ بالله استاقي أبو داود بلك مرتين حلو والله ذاتك فدي هدان الباب كبحا ويمتك كبحان ميشان أسعين أي تقام بوري لي قدوا بنايا يقول هو الذي إذا خالفت رأيه سماك كافرا واستحل دمك وكذا وكان الحجاج كذلك يقول اسك إلى مركز اسك إلى تكفيرك بعضكم لبعض في الاجتهاديات هي تفسيق هي حد كذبك هي مقاطعة هذا اسك إلى معناه تام معها واجب الرد والإنكار على جوجي ما وكذا دوانت وعن قال الله يو روح هذا خلط كورة تقول نصيحة ردي خلت كيس عدي وواجب كقولها حق كقولها هو أما هو صوق عدي أما أظن مصلحة وار إنكر لو قاده لكن وعن قد جيو وحاوي حد كذبك كو جينا ينات جاردو مذهبكي خوارج تات جاردو waxaa igu dambeeya masala ii dhimanayd oo shoog waan ka tagay waxaa igu dambeeya waajib al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar hada lagu dadaalo iyo al-ghadab bil intihak hurumat Allah subhanahu wa ta'ala iyo in loo danqado loo xanuunsado loo caroodo xad gudubka diinta lagu sameeyo daniina khaaska hadii meel laga dhac waa xanuunsataan waa diididaan waxa weeye inaad cadaynaysaan turida la baxaysaan waad habar wacanaysaan marka wax yar oo dheeftiina ama magaciina meel wax loo geysto diinka ilaahay baa wax walba ka mudan asaga wax walba ka qiimo badan
waajibka diineed oo shayga dadka in wanaaga la furo xumaha laga reebo xurumaadka rabbiga lagu tumanayo loo dhidhiyo loo ficiloodo waa min ad-diin saadartu culum waxay sheegeen diinta islaamku waxay eeday gaabinta laga gaabiyey munkaraadka ummadda in laga reebo wanaagana la furo taariikhda islaamka iyo midda gaalaadna ma aysan qorin mana sajilin dowlad islaan oo duntay ama burburta iyadoo salaada oogaysa zakadana bixinaysa واجب الحسبنا أتاغا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مع دبيان وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلا عاقبة الأمور آيات داسي قوم طبقي في التاريخ ولو المدمان لما هي دولة عباسية دونتي تاسي ايضي أمويين بادو من كاسي ايدين أما الخلافة الراشدة ويتوسيين نبي محمد واتوسي خلافة الراشد التاريخ الكفر والإسلام مقرن دولة انت هجاج سود دونتو لقعت كذا في التاريخ مالك واجب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لقد قابيه ها وحينو تاغنانا لا تقوم لنا قائمة ولا تقوم لنا دولة مجريسان أو شيء هذا الاسكي الالي برهادين لبقاع مكو كان قدر حجري إن التجارب شاهدة بأن ضعف الدين في هذه الأزمنة ومحقه في أعصار الملل السابقة إنما هو بالتواني في الإنكار والتسليم لكل ذي رأي رأيه صواب الجواب للسائل المرتاب المجادل المعارض في كفر من فارد مجلد كلابات سيديت بقول سغاشن سغال بوسيدا كويل هذا تجاربتا هي تاريخ ذا وحي شيكتي بوري دينتا اسلام قدوميدو دي بابيد وحكي ماده غابينتا لغا غابيو اما لوغو غبود فلو ددك وناغا ان لا فرخ ما لغا ريبو هاوشا انتي تاغانتاي دينتو وي تاغنانيس الامام ابن قيم هذا ديرو قيمه بدن بولياي قضيهدا ku saabsan wuxuu leeyahay shaydaanku intuu ku dago wuxuu ku oranayaa salaada iska tuumada waxba kaama gelin مالك تتوجز القرآن آخري اسك عمريس اسك حجي بدا محاكو قليي هولها محاكو قيستي ميل بكو حرحرايا حو صدقات بحسو صلاة تكتو تنا هذا خاصك عمراد هذا تمجز مالك آخري هبل ما شاء الله نفي عنوي زي هبل بقلايو صدح المعلومات القرآن كو ختمه اسلام تسمي حجابه ويلك زحمانتا كما قبطو عرورتي سواقاوين وصبر باور وي وحول بقول ضيعوا الدينيت كتاب وين مصحف وقالنا يا مساد بدح فريسنا يا هي انت سوكو امانيه امدنا يمودنا كون اكسيه وشيطان تلبيسكي وي انت اتصلت في عنتا هاي ما لغا ربا وحكا في عن باكا مقن حد قدب كلات سميسي قبض فل كلات سميسي قابين كلات سميسو او اديغا iyo ahalkaada iyo ummadba duminaya شيطان باطل قصاء وقلبه كذب وحكسوا اللي وداده علماء كشيغو فربدان ومركا ايو حقوق بيلكو وسخان يahay صلادنا وسخانتا ايمان في عانه تجينهايو بر والدين او هلو بس وحيغا مقان ما جiro umada harugmato gaalaha soo fakato fisqigu ha faafo xumaantu ha badato hawlu taalama wuxuu waa maxay waa cadawga ilaahay cadawga islaamku كذب وحويري وأي دين هذا كان دنبار ربا إنا كنت الأخريو وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق وهل بلية الدين إلا من هؤلاء إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين وخيارهم المتحزن المتلمذ كأوقف عن وكير حقوق هو شاس كتاب كله هو اللي تقدم عن صميناه أنا حقوق ير البهاري زيرو البهاري حقوق إنها استودقة فرق هذا ما هي وحقوق المتجر ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه صدح واسكو دريو صدح دبا وحير هدي اسغا شرفتيس ما ييلهي wax walba wadul qadan kara laakiin karaamadaydu ma ogolaan karo in wax la yeelo oo karaamada diinta aw oo tii Allah aw oo tii rasuulka aw oo tii ummadda aw hebel wax kala waa ka soo gash laakiin sharaftaydu meel kaga dhacaya walaw nuzi'a fi ba'd ma fihi ghadadatun
في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله وفرسو wadaadaha laga kala wardiinka u nusreeya laga kari waayo maalinka shilin yar lagu qabsado bangaani buu ku geynaya bangaani meehe subran kood buu ku geynaya 5 milyan 20 milyan bixinaya in adalku xiro lagu dilo soo helo shaqo yar ku haysa asagoo banaanka u noqdo ay banaanka ugu noqoto wuxuu yiri badala xooluhu bixin watabadala wajadda wajtahada wastacmala مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعلام بلية تكون وهم لا يشعر وهو موت القلب بول. قلبي بعد انتي فإن القلب كلما كانت حياته أتم كانت غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل مروى البو قلب النولي هاي أي حمان تقول ابتاه نوال بأنتو حلك كسوحا ونصدابا اللي جاء الصومالي ترادا نوال بأنتو حلكسي هاي أيو حانون صدا حلنينكي قرنبو لبا إذن ما بكو طالبا دانيستاد أهيت بيل كاذبا كو صحمي حو أمني يرنا واضح شو حكام مجرو ومده هدي ركمته كتاب كده هدي لغا توغو من هدي لغو تنتو جريتان كده هدو خطر قالو هلكو طالبا مالك هدو في عنتا بحيو كيلو بهاري أما أدنو دعين قنوت كي صلاة حو اللهم هدينا أدراعين حو ير انت سيكو قدن طايبا هدي مدين بسيدا كو هقاقيس ما إسلامنا بسيدا كو جريس ورنت يرد الله تيمت تي كونيت بادونتي بلايد راديو باديدون اسكتشرا حريتنا كقبحاياي علماء دعوة النجديين إنا دورتان بريها بدنتاي وهابية أهان جرتين لك وهابية والهين لأياي نبي وحول عليه الصلاة والسلام آخر زمان كما كان لقيارو سنة لما حجين كارو لنبيل طبعا النقاني هل كذا كريدو ويكو قبي حاج عبار دعانك كوع العلم مركز ضنبي وطوري ما طورتنا واتقالوا به هذا قالوا بي dhuxusha asaad u hayso waxaa la rabaa inaad dhacaankaada shafadaada ku baktiiso ee halkaa kuu joogta haddaad tuurto iimaankaadii diinkaada baad tuurtay baashay u soo socotay waaday wahaabiyaha la odhan jiray waxay marayaan inay ka bali noqdaan iska takooraan ka cararaan culamaa dacwa annajdiya annajdiyiin sheekh cabdiwahaab iyo axfaadiisii xaruurtiisii culamadu waxbaray warasadiisii ummadda ilaahay ku dharqabtay xusuurtu u dambeysay baa la iska takooraya maxaa yeelay gaalada baa yaa xirsanaysa ninka inta aaminsan dhaqaalihii baa laga goosanaya dagaal baa ku socda dacwadii saxiixada ahayd dagaalkii baa loo adkaysan waayey marka si dagaalkaasi aan fooda loo gelin waa in la wadaadaha anagu shuqulba kuma linba niman khariban bay ahaayeen maxaad naga rabtaa nin duquru ku tookulo soo inuu xuseen matiid waxaad dhihi ormihii ina jaamca geedi baa iga leex waad inkiri جامعة قاسل له ويدي سيانفت الله وكنا وشاس المهم وحاول باش الخاصة مريسة إن لا يسكفر ليو وداده دعوة النجدية علماء الوهابية لا يسكفر ليو أي هذا تاجنت مساعدي وهابية ذا لقى عايا معاهده ذا لقى طلع عايا دليل ديبت با لقى دوريا أيما الدعوة النجدية أفر شيء ولا يمادين أفر تاسين نينكو كوكي أفر مسلم معه wax kale la yimid ma jira afar show diinteena kamida oo duugooda bay cusboonayso boorka jafeen tajdiid bay la yimaadeen wax cusub lamaysan imaanin dayactirid naashnaashid dib u noolayn ihyaa sunan bay la yimaadeen masalada kood maxay ahayd in xaqiiqo tawxiid la cadeeyo tawxiid muxuu yahay islaam muxuu yahay إيمان محوياي دين محيط هاي عديه وح كتبته كأخرية فيرية طلبات محي هاي إلا عديه الشركة كسور كذا الدنيا التوحيد كإسلام والتوحيد محويا أنكو قيحه أنكو شرحه دينك محل قصوى قلا إلهي محل قد وهذا بيشرح وهابي علماء الدعوة النجدية إسلام كوناكسين التوحيد كمحا كسور كذا الدنيا كرن ويشرحين ومسألة لبعض تصدحات وحيدهن نينكا توحيد كفامة شركي كان قرطة إيه هدنا خلافة إلا قال سوى واجب ده توحيد كبو قرنية شركي كبو قرنية حق النووس يوليبت إلا قال سوى واجب تكفير كوحكا وضان وتكفير كالمستلزم للتعذيب والعقوبة كاسي أشرطيان معرفة
laakiin marka hore shirkiga ku dhacdo ama kufriga waxay ku leeyihin waxaa tahay mushrik kaafir baa tahay ayagaa caddeeyey hawsha way kala qaad ama cuquuba hadday tahay oo in lagu dilo adduunka ama aakharo qiyaam ulxuja u shardiyaan qodobka afraad ay la yimaadeen mushrik in la gaalaysiiyo nin tawxiidka garanaya oo shirkiga loo sharxay hadda xaggana diiday oo dacwadu gaadhay in leeda waa gaal waxa ku jaban muxuu ii sheega qodobka afraad ay la yimaadeen waa maxay qitaalu lmushrikiina haaulaa xataa yakuuna diinu kullu lilah mushriga in lala dagaalamo mushrikiinta ilaahay diintu alla keligii u ahaatay hogaansanku islaamka rabbi keligii u yeesho waqaatilu xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah ilaahay baa yidhaahde meelo dhowra waad garanaysa afartaa masale la yimaadeen towxiidku ummadda in loo fafaayo loo sharxo shirki wuxuu yahay loo sheego mushrikiinta la gaalaysiiyo mushrika xaga qaadan waaya in haddii awood loo helo lala dagaalamo afartaa masale la yimaadeen maxaa ku jaban bal wax ka badanoo hadda ay muslimiinta ay dadka waagii ay joogeen noolaa ay isku qabteen miyaad garanaysaa xagga kale fiqiga niman xanaabilay ahaayeen madhabka afraad ee fiqiga raacsanaayeen waa xanaabila fi lfuruuc masaa'ilka la yimaadeen usuuludiinkana waa afartaa masale ay ummadda u cusboonaysiiyeen afartuna kitaabu rabbika sunnatu nabiyika ijmaacu salaf ulumma ku caddahay hal masalo khilaafiya kuma jirto marka maxaa looga carari maxaa loo cambaarayn maxaa balaya looga dhigi ninkii qaadi weydo hawsha hadhaan waxaan islaax baan ahay akhwaan baan ha yidhaahdo urur way badan yihiin laakiin asagoo wahaabiye sheeganaya oo shaarka nala qaba haddana inuu culummada ayagii a'imadaanadii ajdaadii iyo awoyaashu duro hee waa maangaabnimo maxaa ka sheegay najdiyiin sheekh islam ibn taymiya iyo ibnu qayim baa laga caaya masaajidka sigiska waa dhoweyd oo garanaysa waa aniga markaa hadli jiray wadaad intuu reer waqooyi yaa ku caraatamayay markaasaa lagu soo dhoweeyo wixii ka dhacay waad garanaysa gabagabo ilaahina laga cabsado adduunkana yaan la israacinin diintana wixii loo qaban kare wanaga loo qabto kitaabka rabbigay aad ha loo akhriyo hal la tadabburo waqti ha lagu bixiyo ilaahina hal la weydiisto faham iyo tawfiiq fara badan ninkii la odhan jiray حسين بن فضل واسكلها كتاب الأوريجن نظم القرآن وحول مركان دمع كتاب القرآن كأنها نفسره وحان أخريب لباتن إيا لبكون وجيربان أخريب لباتن إيا لبكون وجيربان تام بقرة كبل لابي أيان بربناس كي انت كلا سوق أخرين جري معه وإن وحول ربا آياتها قرآن كتفسير بديعة أو فسره والله بحث كتابك وقال نظم القرآن بلا يداه لم يؤلف بعده ولا قبله مثله لباتين لبكون وجيرنين كتاب للتدبر والفهم وآخرية محاوة صباحها هاي وحان هورتي لقيه لنبوكيلي وحون قدري إلا وعثرت على نوع جديد من العلم مرقل بون ختمه علم القناء يصبحي لباتين لبقور أو كون وياد لباتين لبقون كن أو شير مكو أقري أي تأليف يسب الله الإمام الشافعي أحكام القرآن كن مجلد كا ما كان طبعا اللي فوري كتاب القرآن كان 100 مرة أخري 100 مرة بقول جربان ختمي مركز تأليف كبلاوي جزء يرو كوبان ويون شن بقولوا بيج كبضنين أيو ربعين وكأوري أحكام القرآن وحنو آخرنا كتاب القرآن كا جزء كسوه ألفه 100 مرة بقول شير إذنكم مسألة ما كانت ربطان لما مجلد ساو فيري صار ساو دريري وانا قانا إيدار اللايف كسوق الكسي دا مسألة ده سامية زعريزة هوشا إسكي إلالية دقناشها إيا وقتك كتابك ربك يسيا كبحية جهد فربضا شاوصا من تيمية كشلي توضي أصولي وقت دير كبحية مفسر إلى يفهم كم من يستي يحو آد أغو قوميي وقتك بدنا وصن كبحينين تدبر كتابك قرآنك مركو ديمانا يشليتو كجاري وقتك ديران صوم مرئين فقيادي علوم كلائي يكون مشغولي وان كقوميا وحياة كل أنا كبحيو كتابك ربك انتو تقو ومساعد لا تقو أرنتي أو تكدو إلى بريو يا معلم إبراهيم علمني
ويا مفهم سليمان فهمني كتابك قرآنك وقت بدن كبحية فان كيسة آخرين كيسة كتوكت كيسة تدبر كيسة واد ما سنتين وحي خيرا شيء الله يدنكو أنفعه وحي قف أما صور مسيرتنا وقتنا الله يدافو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته